soo dhawaada asxaabta oo ku faraxsanahay inaan coachkaaga aad ii doorato muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin ku tuso jimicsiyada sida ku aragtay Ramadan Blank waxaad heshay dietkii iyo workout plankii oo aan sameynaynin afurka sababta u dooranay afurka ka hor waxaan doonaynaa xilliga ugu fiican jirkaagu keliya qaabka isticmaali doona jimicsiyada sameeyo jimicsiyadan sida u samayso keliya waxaad u baahan tahay mat yariskan oo kale iyo waxaad u baahnaan doontaa xarig waayo sida aragtay wareegga saddexaad waxaa kuu qornaa xarigga bood marka maxaa sugaysaan asxaabta aan guda galno jimicsiyada okay asxaabta waxaan idin tusayaa jimicsiyada qaabkaan u samaynayno exercise koowaad waxaa inoo qornaa wareegga koowaad ayaan ku bilaabana waayo circuit waaye wareeggii wuxuu ka kooban yahay wareegga koowaad oo kale waa kana intaan ku haystaa afar exercise ayuu ka kooban yahay afartaas exercise aad dhamaynaysaa hal daqiiqa nasanaysaa kadib haddana wareeg kale ka sameyn saddex wareeg kadib haddana waxaad u gudbaysaa circuitka labaad ama kan kale oo ku qoran marka aan ku bilaabno exercise ugu horeeya waxaa inoo qoran line leg raise sidaad u samaysid waxaa laga rabaa number 1 in aad lugahaagu straight ay ahaadaan saas aad dhahdid kadib korkeen hoosgeed korkeen hoosgeed korkeen hoosgeed waxaa ka samaynaysaa 20 kadib exercise-ka labaad ee u gudbaysaa exercise-ka labaad waxaa inoo qoran sidaad ku arkaysid jadwalkaaga waxaa inoo qoran crunch exercise-ka loo yaqaano crunch markaad samaynayso waxaa laga rabaa lugahaagu inay saas ahaadaan kadib saas dheh waxaan sameynaynaa hadda cruncheska ayaan sameynaynaa sidaa adigoo ah gacmahaaga halkan ku qabo kor imow hoosta imow hoosta markaa kor imaanays neeftiida halkan hoos aadaysa neeftaada isagana waxaad ka samaynaysaa 20 jeer ayaad ka samaynaysaa 20 jeer asaga markaad ka samaysid waxaad u gudbaysaa exercise saddexaad oo inoo qoran exercise 3 waxaa inoo qoran seated in and out markaad samaynaysid gacmahaaga inta dhig gacmahaaga saas u qabo lugaha isku qabo saandhe fid isku keen fid isku keen fid mujada isku keen asagana waxaa loo yaqaanaa seated in and out asagana waxaad ka samaynaysaa 20 jeer asaga markaad dhamaysid kadib waxaa inoogu dambeeya exercise-ka oo wareeggan ugu dambeeya afar exercise ayuu wareeggan ka kooban yahay exercise-yada dhexdeeda waxba ma nasanaysid waxaa inoo xiga tall leg raise gacmahaaga inta ku qabo marsanda waxaad haynaysaa sidaas ayaad haynaysaa lugaha goorna straight ahaadaan hal daqiiqo ilaa 45 seconds wado adiga maalmaha ugu horeysa kugu adkaada dib malahan waa la arkanaysaa sidaas ayaad haynaysaa isagana nolosha aad ayuu uga jaraysiinaya shiilaya okay waa kaa asxaabta wareegga koowaad sidaas ayaa exercise-yada iskugu xejinaysaa adigoo u dhexaysiinaynin wax nasasho ah okay asxaabta waa aragteen wareegga koowaad markii aad 3 jeer kasoo samaysid waxaad u gudbi doontaa circuitka labaad oo isagana ay nagu qoran yihiin ilaa iyo 5 exercise ugu horeeya sidaad aragtay jadwalkaaga waxaa inoo qoran mountain climbers exercise loo yaqaan ayaan sameynayna isagana maxaa laga rabaa markaan oo kale daqiiqada inaad qabsataa laga rabaa qofka ku qabso waxaa ka qaban 45 second ilaa 1 daqiiqa marka mountain climbers si aad u samaysid sidaa dheh gacmahaaga saas dheh waxaa rabaa xusoo kale inuu soo dhawaado jilibka jilibka xusoo kale usoo dhawaado marka waa bogsiinaysaa saasaa laga rabaa exercise-kan ayaa loo yaqaanaa mountain climbers 45 second ilaa daqiiqad ayaa qabsanaysaa exercise-ka waa exercise 1 ee wareegga labaad exercise-ka xiga waxaa inoo qoran sida videoga ku arkaysid alternating knees to elbows exercise loo yaqaano alternating knees to elbows si aad u samaysid number 1 sida u jiifo markaa saas dhahdid gacmaha madax ku qabso waxaa waaye labadan waa isku imaanayaan kana fidinaysaa labadan isku imaanayaan okay samayna marka mar walba korna waa ka soo kacaysaa isku keen qofka jilibka istaabsi exercise-kan isagana caadi maahan caloosha murtaheeda dhan wuu saameynayaa
sidaad ku arkaysid isagana waxaa ka samayn doontaa 45 second ilaa iyo sida ku arkaysid haddaba jadwalka exercise number 3 waxaa inoo qoran planks oo front ah planks 1 daqiiqo 45 second ilaa 2 daqiiqo intaa gaarsiin karta qofba tabartiisa ku xiran tahay planks si aad u samaysid sulada inta ku qabso kidi qoraha ku istaag straight aho caloosha squeeze garay 1 daqiiqo ilaa isagana waxaa kaynaysaa ilaa iyo 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo gaarsiin karta kadib markii asaga dhamaysid waxaa inoo xiga right side plank oo asagana aad samaynaysid dhanka midig gacanta qaybteeda midig ku qabso lugahaaga fidi lugaha markaad fidisid gacantaada xagga saar right side plank kana wuxuu u fiican yahay qofka kiliyaha la kiliyuhu shiilaya asagana right side markaa samaysid asagana 1 daqiiqo ilaa 45 second markaa samaysid left side aad u imaanaysaa haddana left side the same qasab dhulka ku qabso lugaha fidi jilibkaaga dhulka uu ka qaadmaya luuga saas straight isagana wuxuu shiilaya geeskan kale asagana qofkii lahaa halkan dadka ku leh xeyrtoo kale aad aragtay way ka shiilmaysaa 1 daqiiqo ilaa 45 ilaa 2 daqiiqo maxaa la rabaa wiigba wiigga ka dambeeyo inaad sii siyaadiso okay saxaabta waa inoo kaa exercisyada noogu qoran wareegga labaad okay saxaabta waa aragteen wareegga labaad exercisyadoodu markii aad dhamayso labada wareeg kadib sida wareegga saddexaad ku arkaysa waxaa kuu qoran xarigka boodka sidaan kuugu sheegay xarig oo noqon kara muhiimadda waxaa waaye xarigka bood inaad samaysid isagana waxaa samayn doontaa 1 jeer ayaa samayn doontaa adigu kala qaybso ama 2 wareeg ka dhigo 500 kala samee ama 3 wareeg ka dhigo adigu qaabka u kala qaybsan karta ama 4 wareeg ka dhigo qofba tabartiisa marka asxaabta inta bisha Ramadaan lagu jiro jimicsiyadaas ayaa samayn doontaa maalin kasta marka laga reebo hal maalinka jimcaha ayaa lagu ogol yahay inaad nasatid marka waxaan rajaynayaa in aan bishan ku jari doono haddii aad dietka sidiisa u wadid exercisyadana sidooda aad u wadid isbedel weyn aad u weyn ayaad arkaysaa bishan insha Allah bye bye